Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta qaaliga meel kastoo joogtaan aad baan idiin salaamaynaa. Asxaabta hore nala joogtay waxaad leenahay aad baa mahadsantihiin. Haddii ay adiga tahay markii kuugu horreysay eed wejigayga aragto fadlan waxaan ka codsanay inaad subscribe noo saarto asxaabtaadana aad la wadaagto waad mahadsantay. Intii hore noola joogtayna waxaad leenahay waad ku mahadsantihiin. Commentigiina quruxda badan leh noo soo qortaan sidaad fiican noo dhiirigelisaan aad baad mahadsantihiin. Meel kastood joogtaan waxaad leenahay idinkuna hore ula socda annagana sidaa fiican noo garab taagan tihiin mar walba noo garab taagnaada aad baanad u mahadsantihiin. Haddaba maanta saa teetalkaba ku aragtaan mawduucan aan idiin soo gudbina waa sheeko xaqiiqa ah oo dhacday, waxayna ka dhacday magaalada Muqdisho. Waa sheeko runtii dee u baahan in si fiican loo dhageysto oo amba lagu cibro qaato. Sheekadana waa sheeko xaqiiqa ah ka dhacday magaalada Muqdisho. San hore idinku sheegay magaaladii Muqdisho ka dhacday waxaana ku dhacday nin ay qisadani ku socota. Haddaba sheekada haddaan idiin bilaabo, sheekadu waxay ku bilaabaysaa ninkan sheekada qisada ku socotaa wuxuu ahaa nin haysta dawaar amba harqaanle saa u taqaanaan lahjadaha kala duwan. Adigu dawaarlu ahaa kuwan waxyaabaha dharka lagu talo dee dawaarle amba harqaanle saa u taqaanaanba. Ninkaasi adigu wuxuu ahaa nin iska bulshaawiya oo si fiican dadka ula dhaqma. Haddaba ta u dheereed waxay ahayd nin adigu inan kastoo timaado lambarkuu ka qoran jiray. Haddii ay inantaasi xaafadda hadday ku cusub tahay lambarkuu ka qoran jiray, haddii meesha u timaado lambarkuu ka qoran jiray. Xataa wuxuu gaadhay heeruu basku fuulo xataa qofka la soo ag fadhiista booskiisa ku xiga inuu lambar ka qorto ayuu gaadhay. Kadib baa waxaa dhacday in maalmaha ka mid aduu sidaas suu intaa hablo badan ka qoray uu ka qoray ta u timaado ka qoray aduu mid kastoo u timaado suu lambarkii ugu qoranayay ayaa maalin maalmaha ka mid ah habeen waxay isbarteen inan ku darso hablaha faraha badan leh ee uu taleefanka ka qoran jiray. Mustaqbalka muu lahayn muu doonin dee inuu guursado, guurka muu doonin aduu iska haasaa wixiisu dee kamay soo geen weli inuu guursado. Kadib baa waxaa dhacday in habeenada ka mid ah ay isbartaan inantii bay si fiican isku barteen, meel bay wada fadhiisteen, way sheekaysteen. Kadib markii inantii sheekaysteen baa waxaa dhacday in ma garanaysaa inuu waqtigii dhacay ay dee in badan isku soo raageen ay waqti badan wada joogeen. Kadib inantii baa wuxuu ku yidhi waan ku dhaweynayaa gurigiina ku gaadhsiinayaa. Kadib inantii waxay tiri waar aniga layma dhaweeyey iska tag anigaa gurigaygii tagaye. Kadib baa waxaa dhacday in inantii aduu muran kadib dhacay anigu waan ku kaxaynayaa iyo ima kaxaynaysid aduu sheekadii baa sii dheeraatay. Kadib inantii baa yeeshay in la kaxeeyo uu raacay way israaceen. Kadib markii ay israaceen ayaa waxaa dhacday in inantii ay ku tiri aniga layma helo. Markii gurigoogii kaninkoogii taagan tahay ayaa waxay ku tiri aniga habeen walba layma helo, waxaa la helaa khamiista iyo isniinta. Kadib ninkii waa yaabay oo waayo maalmaha kale xaggaad qabataa maxaa kugu dhacay? Aduu hadalka igu badin bay ku tiri labada cishuun baynu kulmaynaa waxaanad ii timaadaa khamiista. Kadib baa wuxuu ku leeyahay ninkii anigu waxaan ka dhageystay sheekadan ninkii ay qisadani ku dhacday. Kadib baa ninkii wuxuu ku leeyahay gurigoogii bay gashay, anna gurigoogii baan eegtay waan iskaga imaaday. Kadib markuu gurigiis eegtay ayaa wuxuu ku leeyahay habeennimadii markaan guriga yimid ayaa aduu wuxuu dareemay dad jacayl ka badan hablihii kaluu arki jiray, hablihii kaluu lambarada ka qoran jiray, hablihii kaluu baran jiray ayaa waxay tani ku noqotay mid wax la yaab la dee sidii ay kuwii hore markuu ka yimaado ugu dambeyn jirtay. Balse tani waxay kaga dugnayd hablihii kale. Markii uu sidaa uga yimid ayaa wuxuu dareemay waxyaaba aanu hore u dareemi jirin. Waa si garaasaa dee qofku markuu dee wixii hore waxaad haysatay iyo wixii kale sii kala dugnaanayaan waa laba shay oo aad iyo aad u kala duwan. Kadib sabtidii waa iska sugay aduu ayaamihii oo dhan wuxuu ku leeyahay waan sadkeynayay. Arbacadii ku tiri hay imanin ayaa wuxuu go-aan ku gaadhay inuu markii uu sadkeyn kari waayey inantii uu ka maarmi kari waayey ayuu gurigii ay ugu timaatay ayuu galay. Kadib markuu gurigii tegey ee uu gurigii qaraacay inan baa ka furtay xilli iska fiido buu qabtay aduu inan baa ka furtay yaa doonaysaa bay ku tiri. Wuxuu ku yidhi inanta magacaa iyo magacaa lahayd iminka magacii uu sheegay ma xasuusto laakiin
inanta magacaa le way yaabeen. Inantii baa yaabtay, waxa u yeedhay walaasheed, waxay ku tiri inankani intaasu doonaya, aduu faamiligii baa wada yaabay. Kadib odaygii baa loo geeyey. Kadib marka odaygii loo geeyey ayaa waxa dhacday in odaygii ma garanaysaa uu ku yidhi kaale aabo keeyaad doonaysaa? inantaa heblaayaa doonaya. Odaygii baa yaabay, saasuu eegay, bal wuxuu yidhi bal soo qaaday inantanuu doonayay waa inantayadii, bal soo qaada sawirkeediinu ka dhex garto. Inankii waa yaabay, inantii ma guri aanay deganayn bay ayay kuu sheegtay? Aduu de waxyaaba badan baad maskaxdaadu filanaysaa. Kadib markii waxaas kugu dhacaan, inantii aabaheed wuxuu soo qaaday sawir ay ku jirtay, waa la tusay, waa tan baa layidhi. Kadib baa waxaa dhacday in uu ka dhex gartay. aduu odaygii ayaa ku yidhi aabo inantani waxay dhimatay 2 sannadood ka hor. Ninkii waa naxay, waa gariiray, meeshii wuxuu allaali iyo wuxuu sameeyu gara waayey. Naxdin gariir dee haddii adigiiba kugu dhacdo saas oo kale dee waad gariiri layd. u dhididay. Odaygii baa ku yidhi isdeji. Haddaba ninkiin ka sheekeynaya sheekada ay ku dhacday anigu aan ka dhegaystay ayaa wuxuu ku leeyahay dee markii aan gurigii ka yimid wax allaali iyo waxaan ku sugnaa ma kala garanayo. aduu aakhirkii dee inantaasi dee waxaan u malaynayaa in lagu tusaayey inuu iska joojiyo hablahan faraha badan le ula hadlayay, ulahaasaa u jiray ee aanu ka damacsanayn inuu guursado. Haddaba muhiimadda sheekadan usoo qaadanay ayaa waxay tahay in rag badan amba dumar badan, horta marka la eego rag iyo dumarka keebaha ah, in xagga beenta waxa ku badan dee dumarka. Marka ninka quraati waa xabad, laakiinse marka la eegayo keebaha waxyaaba badan amba inamo badan xidhiir la sameeya amba hablo badan waktiga ka lumiya. Markaad si eegto iminka waqti xaadirkan waxaa ku badan hablaha. Haddaba taasi waxa weeyaan inkastoo ragguna qaar jiraan, waxa weeyaa in qofkii aynu sheekadan amba qisadan waxaynu ka dhex garan karaynaa in ma garanaysaa aynaan iskhiyaamin, aynu runta isku sheegno, oo aynaan waxyaabo khaldan aynaan ka hadal, oo aynu mawduucii amba aynu sheekadii jacaylku waa jiraa, balse de waxyaabaha la iskugu yimid in laga miro dhaliyo. Asxaabta qaaliga aad baa mahadsantiin. Waxaan rajeynayaa in sheekada aad ku imro qaadan doontaan amba aydun dee dhiirigelin waxyaaba kasii hortaga idiin noqoto. Dadka waxyaabaha xidhiidhada badan sameeya amba qof kastay arkaan amba lambarka qortana waxaa leeyahay rag iyo dumarba ha ahaadaane dee waxaad idinku is idhaahdo balis eego dib iskugu noqdo xtiraa waxaan ma idiin fiicantahay mase idiin fiicnaa. asxaabta aadaan idiin salaaminaa. waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin sidaa fiicaneed commentiga quruxda badan leh mar walba nagu soo qortaan. aad iyo aad baan idin mahadsantihiin. waxaan rajeynayaa in muuqaalo xiiso badan ay noo soo socon doonaan, hanaga caajisina. dee waxyaabo badan ayaa noo soo socdaa. hanaga caajisina waan salaaminaa meel kastoo joogtaan.